soo dhawaada asxaabta. Waa walaalkiin Cabdallah oo idin leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Sanaan kadib cashirkeena ugu dambeeyay wuxuu ku saabsanaa sida loo diyaariyo table marks for schools, sida iskuulaadka iyo wixii lamid ah ay u diyaariyaan tables, ay uga hadlayaan sida ay u diyaariyaan table marks oo ku saabsan ardada iskuulaadka. Marka tablekan waxaan uga hadalnay fasal kamid ah oo ah fasalka form 1. marka fasalka form 1 sample ahaan waxaan u qaadanay 4 qofood. 4 qofood waxaan u sameynay xoogaa maadooyin aan u soo qaadanay iyo markskoodana waa siinay. Sidoo kale waxaan u sameynay total iyo average. marka sida aan idinkaga ballan qaaday waxaan sameynaynaa sheet cusub. sheetkaasna waxaan kusoo bandhigaynaa tablekaas oo ah in hal qofood aan ku sameyno qaabkii aan idinkaga ballan qaaday. marka waxaan rabaa sambalskan 4 qofood inaan ka badiyo oo aan gaarsiiyo 8 ilaa 9. marka aan isku soo laabano. waan soo laabanay. waa ujeedaan waxaan gaarsiinay ilaa 8. awal wuxuu ahaa 4 qofood, hadda waxaan geynay 8. marka waxaan rabnaa hadhow si ay noogu fududaato in qofka aan rabno hadhow aan ka doorano si uu sheetkan uu noo galo. marka hadda waxaan sameysanay sheetka labaad. waxaan ku sameysanay tablekii aan rabay oo aan idinkaga ballan qaaday inaan sameeyo. marka hadhow meeshan waxaan gelin doonaa number 1 ilaa number 8 midka aan rabo. number 2 aan gelinaa, number 6 aan gelinaa. hadhow waxaan rabaa in meeshan magaca ku qoran galaaska, maadadii tarbiyada ahayd, carabigii, maathkii ilaa maadooyinka dhammaan totalkii ilaa averagekii inay halkaas qof bas ay noo soo galaan. number 1 yaa noo ah, number 1 waxaa noo ah Xasan, dhammaan totalkiisa inay xagga noo soo galaan. haye haddana number 8 yaa noo ah, waxaa noo ah Shukri Cumar, in dhammaan totalkeeda iyo averageka iyo inay noo soo galaan. marka sidee la sameynaa? qaacida la isticmaalaya jiro aan isla socono. waxaan rabaa mid kamid ah inaan xasuusiyo. hadhow meeshan waxaan sameyn karnaa haddaan rabno 2 qaab oo ah waa idin tusi doonaa. hadda waxaan calaamaysan doonaa meeshan number 1 meesha ku qoran tahay. number 1 intuu dhacaa, number 1 wuxuu dhacaa B, columnka B iyo rowga 3. hadhow waxaa leenahay meeshan waa B3. okay, meeshan waxaan dhahnay B3 aan kasoo tagno aan imaano meesha ugu dambeysa ay qoran tahay 95.28. averagekan oo percentageka meesha ku qoran yahay waa xagee intuu dhacaa isagana. wuxuu dhacaa M oo column ah iyo row oo 10 ah. hadhow waxaa leenahay M10. meesha waxaa soo dhahnay B3 iyo M10. meelaha ku qorto adigana meel ku qoro. waxaa dhahnay B3 iyo M10. hadhow 2 qaab ku tusi doonaa. 2 qaabna waa suubi doontaa, waa suubi kartaa. hadhow waxaan ku tusi doonaa 2 qaab. haddaad rabtid midkii kuu fudud ayaa sameyn kartaa. okay, aan imaano sheetkeeni. intee ka bilaabayna marka?
marka waxay tahay tay ka bilaabina kama bilaabina meeshan numberkay ku qoran tahay direct number 1 na dhigi kartaa oo column-ka ama row-ga ka bilaabaysa inaad si bilaabato ama shiba ka dhigi kartaa waxa ka bilaabi kartaa name marka name-ki waa joogaa tay wax ka bilaaba qaacidada isticmaalina waxay tahay meel ku qoro ama korka xigdi waxa leenahay equal meel ku taalo jeeda backspace-ka ama meesha laga taabto midigteeda way buttonka ku dhagan equal leedahay kadib waxa qoraysaa VLOOKUP waa kala meesha una soo fuulay double click asaga ku dheh marka double click ku dhahdo waxa taabsanaysaa waxa ku xigto lookup value waxa waaye inaad intee dhacda meesha nambarada aad ku qori doontid number 1 iyo number 2 iyo number 3 intee dhacaysa waxay dhacaysaa B3 oo hadaa isla ogeen waa kana B-dan iyo row-gan iyo B-dan intee dhacda meeshaas numberka intee dhacaysaa G3 aan taabsano B3 marka taabsato kadib waxa leedahay comma marka dhahdo option waa soo bi kartaa inaad sheekhi ku laabato oo aad soo saarto highlight oo B3 inta ka soo bilowdo ilaa M10 ka ageyso ama inaad hadda meeshan sheet 1 aad ku qorato kadib comma aad dhahdo B3 iyo M10 aad qorato comma aad dhahdo iyo column 2 inaad qorato labadaas ma samayn kartaa marka midaan ku fudud aan ku aado marka meesha aan joogtid waxa ku laabanaysaa sheet 1 ka ku laabato highlight waxa soo saaraysaa ka bilaabato B3 ilaa iyo meesha ugu dambayso M10 oo hadaa isla ogeen aan ku dhahay meel ku qoro kadib u soo laabo sheetkaadi marka waxa inaga qaldan meesha wuxuu leeyahay sheet 3 ayaad wax ka soo qaadatay aniga sheet 3 wax kama soo qaadan waxa aan ka soo qaatay sheet 1 3gaas meesha ku qoran tahay iyo tirtir 3ga bister marka 3ga tirto 1 ku bedelo maxaa kale naga qaldan wax kale oo naga qaldan male balse waxa naga maqan waxa aan ku darsanayna ayaa ah column-ka aan wax ka soo xiganayno column-ka aan rabno inaan name-ka aan ku qorno name-ka waxa rabnaa inaan ku qorno Xasan Cali oo noogu horeyso maaha column-ku ahaa column 2 ahaa maxaa yeelay name intee dhacda number markii laga soo tago name intee dhexaysa column 2 aan dhahna 2 comma marka dhahdo 2 geli kadib bracket ku xir enter dheh meesha wuxuu leeyahay meesha wax kama caddo oo waxa naga maqan matqaana wax kale maaha inaan meesha aan gelino number 1 kadib enter dheh Xasan Cali waa haysana aan dhahno number 2 enter dheh waxa haysana Yusuf Geedi aan dhahno number 8 oo noogu dambeeyay enter dheh waa Shukri waxa ka masaxayna ku laabano 8 waa Shukri labo waa Yusuf Geedi كونا حسن علي اوكي كولم كان نيمك waa sameynay aan u tagno hadana kaas qaabkii hadda lay maray wax kale maris mida sameey kartaa inaad qaacidada marka koowaad sameyso highlight soo saarto kadib hadhow meesha aad save ku dhahdo marka save ku dhahdo waxa uu bedelaysaa oo kaliya number 2 gaas ayaa waxa ka dhiganaysaa number 3 oo maxaa yeelay kaaska ayaan sameey rabaa form 1kii too dhaca column-ka saddexaad markii laga soo tago number iyo name class wuxuu dhacaa numberka saddexaad sidoo kale hadana tarbiyo kale marka sameynayso sidoo kale waa sameynaysaa qaacidada soo koobiyeysanay inta iimaanay kadib waxa bedelaysaa oo kaliya 2ga bedelay ama 3ga bedelay waxa ka dhiganaysaa 4 ari wixii noqonay 5 max 6 ilaa ay ka tagto every alahaan dhan marka waa sameey kartaa inaad mid u geliso sida hadoo kale ama inaad koobi soo dhahdo waxa ku fudud oo kaliya waxay tahay inaad koobi soo dhahdo oo hadhow meesha aad save ku dhahdo kadib aad bedesho columns-ka ay ku fadhiyaan haddii aad rabtid inaad practicayso aad si fiican u baratay mid waa u geli kartaa oo aad koobi soo dhahnin hadda aniga waan sameynay meesha inoogu celi number 1 حسن علي وانا سميسه كلاسك امر لباد ku celiyo aniga copy aan dhihinin aan ku celiyo mar labaad waxa dhahnaa equal waxaan qoranaynaa VLOOKUP double click aan leenahay double click marka dhahno waxa aan soo dooranayna waxay tahay
B3 meesha uu ku fadhiyo meesha hadhow numberska ay gelinayay tawa B3 aan soo doorano B3 markaa soo doorto oo command dhaho intee ku laabanayna sheet 1 maxaa highlight soo saarayna B3 ka bilaabato ilaa iyo M10 meel kale ma taabanayno click ma dhehayno aan ku laabana sheet kani waxa inaga qaldan waxay tahay sida daan ku sheegay anaga sheet 3 wax kama soo qaadan ee sheet 3 aan rabaa inaan sameeyno 3 ga tir 1 ka noogu bedel wax kale naga ma qaldano waxa aan ku soo kordhinayna waxay tahay comma markaa dhahno inta sameeynayna column-ka class column-ka waa number 3 u dhaca waa ko oo number 2 oo soo sameeyno name 3 oo class 3 aan qorano 3 ka qorto kadib bracket ku xir enter leh waa kaas xasan cali form 1 waxaan rajeynayaa inaad fahanteen qaabkaas ani hadda ma sii wadi karo waqtiga waxaan rabaa inaan ku beeqaamiyo inuusan waqtigu nagu dheeraan waxaan rabaa inuusan waqtiga nagu dheeraan practically adi labadaas aan caadi u sameeyay soo samee mid kale haddaan waxaan sameynay highlight soo saarayna soo ma waxaan sameynay highlight soo saarna sameyn maanta anigoo highlight aan sameynin ma sameyn karnaa ha ila daawo markii waxaan leenahay equal VLOOKUP double click VLOOKUP ku dheh kadib soo dooro kan markaa kaa soo doorto oo aan comma aan dhaho maxaa inoogu xigay highlight mar rabna inaan soo saarno ma qori karnaa sheet ha aan qorna sheet midda koowaad capital sheet caadi qoro sheet markaa dhahdo sheet 1 alena sheet 1 markaa dhahdo calaamadda hoos u jeedana taabso waa shift number 1 la dhibis shift number 1 markaa dhahdo dooqo B3 qor B3 capital B iyo 3 laba dhibcood markaa dhahdo waxay noogu xigo M10 comma aan leenahay comma markaa dhahno column-ka sameynayna column-ka waxaan sameynayna tarbiya column-ka tarbiyintu dhaca number 4 aan leenahay bracket ku xir enter leh ninkaas tarbiyadii wuxuu haystay 100 sax miyaa qalad ku fiiriba waa sax tarbiya wuxuu haystaa 100 tarbiya wuxuu haystaa 100 ninkan tarbiya 100 macna ma laha in tarbiyadaas ay qaldan tahay caadi waay okay aymaana marka waa sameynay qaabkii haddana waa sameynay qaabkaana waa sameynay kana waa sameynay hay marna marka inaan waqti ku dheerayno aan aniga hal u geliyo waa adiga inaad practical sameyso waxaan rabaa marka inaad copy soo dhahdo sidee copy la dhahaa copy marka halaha soo dhahato oo interkeeda ku celiso inta imaanay waxaa leedahay control V waa dhahay haddaan intaasi dhaho tarbiyadii la iisoo noqonayso ah boqolkii tarbiyadii boqolka iisoo noqonayso ma raba inaad tarbiyadii boqolkii iisoo noqoto waxaa iska bedelaa number 4 kaas iga bedel waxaan ka dhiganayaa number 5 oo ah waxaan sameynayaa carabi tu dhaca 1 2 3 4 5 u dhaca 5 waa dhahna enter dheh carabina isagana 100 maadka imaano marlaad copy soo sameysan copy waa wadataa maad marka imaadid control V dheh iska bedel 4 ka iska bedel 5 na iska bedel 5 na soo sameysan ma 6 dheh enter dheh maadna waxay haystaa 100 qaabkaas si sahlan u sameyn kartaa boosiis ah marka haddii aad soo sameyso qaabka koowaad oo xasana inta marka koob waa dhigi kartaa haddii aad practical fiican rabtana mid walba waa sameyn kartaa marka aniga aan ku wadana marka qaabkeeni bastiga aan dhahno control V waxaa iska bedelaynaa 6 waxaa iska bedelaynaa dhehne 4 kii ugu dambeeyo aan sameynay math meeq u ahaa 6 ma heno ha 1 2 3 4 5 6 sameynay waxaan leenahay 7 enter dheh English ne sagaal wataa ama 9 English ne 9 wataa aan ku laabana sax miya English 9 sax hay maana geography control V maxaa iska bedelaynaa 4 maxaan ka dhiganaynaa 8 maxaa uga dhiganaynaa maxaa 8 uga dhiganaynaa geography intuu dhaca column-ka 8 1 2 3 4 5 6 7 8 u dhaca enter dheh waa kaa geography na 4 haystaa history mo control V dheh iska bedel 4 iska bedel waxaa ka dhiganaynaa 9 enter dheh Soomaali mo sheeka dheer haba gelinbo
4 imo 10 ده 10 ayuu dhacaa عفوا تدعى 10 كتب انترنت Soomaali sagaashan haye imo inta total imo control V iska bedel imo control V iska bedel 4 waxaan ka dhiganaynaa 11 totalkii meeqo haystay 635 imona average control V iska bedel 4 هاي 12 كتب انترنت ninka la yiraahdo Xasan maadooyinkiisana uu keenay intaas oo maxka totalkiisana uu yahay 675 averageisana yahay 96.4 masax absqaad aan ku laaban shidwan Xasan Cali maxka koowaad yahay totalkiisa averageisana waa 96.42 waa sax marka aan fiirino dhamaan sampleska number 8 number 7 number 6 number 4 number 5 number 3 aan ku fiirino sheedka aan hadda sameynay inay soo galayaan in kale okay ilaa wuxuu noogu ekaa number marka aan fiirino sambalka mid kamid ah Mawado Cabdi markaskan ay leedahay iyo total average-keeda sax ah mise qalad aan fiirino numberkeeda meeqa waay number 7 sheedkana tagno meeshaas iska bedelno waxa leenahay number 7 kadib internet Mawado on 4 tarbiintaas wadataa dhamaan markaskeedana waa sax totalkeedu waa 668 average-keedana waa 9.4 waa sax hadhow marka qofka hadii iyadoo maxka macnaheedu uu qaybinayo uu maqnaado warqadina la heenin systemkina ay ku jirto computerka qofka joogana computer ku xeleera oo wax daabacayna uu joogo oo la dhaho u fiiri ardaygan maxkiisa wax u sheeg marka hadhow dhihi maayo sambalkan ama ardadan intaan ka kooban yihiin lacala ardada badan yihiin 34 gaarayaan ka fiirso magacaada ka raaso meeqa haysata ka fiiri saas lama dhihi karo waa qalad maxaa yeelay waxaa laga yaabaa in qof kale maxkiisa uu fiirsado oo hadhow ula tago dhaho inuu maxkiisa soo arkay maxaa iga qarinaysay intaas keentay ama niyo waa dhacday maxay dhacday intaas imaanin bay waxaas dhicin qofka waxa laga rabaa inuu sameeyo sheedkaas waa qofka maxkiisa u fiiriyo oo uu sameeyo meel gooni ah hadhow dadkii gambiyayna uu ka tuso sheedkan uu fura uu ku habeena wuxuu leeyahay waraa numberkee tahay isku fasalka markaa joogto numberkee ahayd ni waxa ahaa number 6 ma ahayd 6 uu taabana inta uu leeyahay ka fiirso sheedkan waa kuwana maxkiisa fiirso maxkiisa fiirsana totalkiisa intuu keenay averagekiisa waa kaas hadhow meeshaas waxa ku nabad galaya marka inuu qof kale maxkiisa uu kasan ka arkin intaas ayuu noogu egyahay cashirkayga waa salaamintiina asxaabta fadlan hadii ku cusubtahay channelka subscribe la wadaag asxaabtaada marka cashirka xiga wuxuu noqon doonaa insha Allah sheedkan aan sameynay oo ahaa total maxkan aan sameynay qofka kaalinta koowaad galay iyo kaalinta labaad galay ma fahmi karnaa hadda waa hadii aan fiirino waan fahmi karnaa maxaa yeelay average kan ugu badan aan fiiri karnaa Soomaa kan ugu badan ayaan fiiri karnaa average-kiisa waa 96.4 waay kan 96.2 waay kan waa 91 marka waxaan leenahay kan koowaad leeyahay ugu badan average-ka kaasana kaalinta koowaad galay lacala hadii ay ka badan yihiin 8 uu lacala kan koowaad iyo kan labaad kaalinta koowaad iyo kan labaad galana ay ku jiraan dhexda si aan table-ka aan soo suubi doono insha Allah sidee loo kala fahmaya ardaydan waxay ka badan yihiin ugu yaraan 8 qofood kan koow galay sidee lagu ogaanaa marka cashirkii wuxuu noo noqon doonaa marka sida lagu ogaado qofka kaalinta koowaad galay